السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أحباب في العقيدة، waxaan rabaa xogaa inaan ka hadlo fadliga ay leedahay salaantood dadka islaamaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. In mar walba la bixiyo la badiyo fadli badan ay leedahay. Kow horta waxaad ogaataa salaanta markaad bixiso, qof markaad ka hor imaado aad salaan aad siiso, ama dad meel fadhiya markaad salaan aad siiso, assalaamu calaykum haddaad dhahdo waa 10 ajir, waraxmatullaah haddaad ugu darto waa 10 ajir, wabarakaatu haddaad ugu darto waa 10 ajir, waa 30 ajir halka mar aad dhahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. laba waxaa lagu helaa jacayl far badanaa lagu helaa dadka dhexdooda. waa asbaabta ugu weyn dadka dhexdooda ay keento inay isjeclaadaan, bulshada inay isjeclaato, waa salaanta la badiyo. haddaba fadli aad iyo aad u weyn ay leedahay, ma qiyaasi karno fadligeeda. laakiin hal xadiid ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo oo aad u qurux badan. nabiga sala allahu alay wasalam waxaa lagu siiyey abu hurayra radi allahu anhu ardaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال إفشوا السلام بينكم رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هي لا تدخلوا الجنة الجنة مقليسان حتى تؤمنوا إلا إله كرميسان ولا تؤمنوا إلهنا مرمينيسان حتى تحابوا إلا تسك جعلاتان. يعني الجعل رب نلقى مهلايو إلا تسك جعلاتان إلا قفل بقف ولا الكيس إنه جعلاضه إيمانك كامل من قنيسو. markaas rasuulku wuxuu dhahay marka awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. ma idin tusiyaa shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan. yaa rasuulallah, annaga dhammaanteen waan u baahanahay shaygan ay asbaab ay keenayso inaan dhexdeen isjeclaano oo qof walba qof kale jeclaado waan u baahanahay. talo maxay tahay? rasuulku sala allahu alay wasallam wuxuu dhahay ifshu salaama baynakum, salaanta dhexdiin isku badiya, faafiya salaanta, meel walba salaanta ku faafiya. yani qofka haddaad aragto qofka hor imaada salaam, meel dad fadhiya haddaad aragto salaam, gurigaaga markaad soo gasho qoyska salaam, xaaskaaga salaam, caruurtaada salaam. salaanta mar walba la badiyo waxay keentaa in dadka isjeclaadaan, bulsho isjeclaato. xabaab fi lcaqiida, waad maqashaan rasuulku inuu dhahayo janna ma gelaysaan ilaad ilaahad ka rumaysaan, rumeyn dhabnin mana laga helaayo ilaad iska jeclaataan. sidee iska jeclaan karnaa marka? sidee isku jeclaan karnaa oo jeceyl fiican oo aad u wanaagsan aan is heli karnaa dhexdeena? awala adullukum calaa shayin idaa facaltumuhu taxaababtum, ma idin tusiya shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan. markaasuu rasuulku wuxuu dhahay ifshu salaama baynakum, salaanta dhexdiina ku faafiya. salaanta la faafiyo waxay keentaa in dadka bulshada isjeclaato, jacayl far badan dhexdooda ay iska helaan. marka axbaab fil caqiida aanu badina salaanta. haddii lacala qofaad salaantay muusan kaa jawaabin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhahday, asigana muusan kugu soo celin jawaabta, iska socda keliya, waxaad ogaataa inaad bilaash ma aadan salaanta bixinin. 30 ajar waad kasabtay, waad heshay. salaantaad wiil waxaa ku ajiibi doona oo kugu soo celin doono malaa'igta, ayagaa ku dheh doonaan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. xabaab fil caqiida, waa fadli aad iyo aad u weyn. aan faafina salaanta mar walbo si aan dhexdeena isjeclaano, jacayl far badan dhexdeena aan u helno. aan faafina salaanta. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.